runtii maanta waxay noo tahay maalin weyn oo ka mid ah maalimaha dowladda hoose ee xamar maamul gobolka banaadir ay magaaladan ka sameynayaan mashaariic horumarineed oo maaragtay bulshada adeegyada asaasiga u ah bulshada magaaladan laga meel marinayo. halkan waxaan ku dhagax dhignay sida aad maqlayseen ama aad arkaysaanba mashruuc lagu dayactirayo warta biyaha ee Siigaale ee degmada Hodan. mashruucan wuxuu ka kooban yahay warta in la faara bixiyo marka hore oo waxa la wixii qashin ah laga saaro si wanaagsan loo faara bixiyo la qodo dabadeedna derbi lagu wareejiyo kadibna markii derbi lagu wareejiyo kadib bam lagu rakibo oo hadhow biyaha looga saaro biyaasna kadib meelihii loogu talagalay tubooyinkii loogu talagalay la marsiiyo. sida la sheegay wartan waxay maaragtay ka fargaraysaa ugu yaraan 7 degmo ayay maaragtay biyaha ka soo hoobto ayaa halkan ku soo aruuro. dhibaatooyin fara badan iyo cabasho badan ayaa ka imaaday bulshada degmooyinkan gaar ahaan deegaankan degmadan oo runtii dhibaatooyin fara badan ku qabay mararka qaarkoodna biyaha intay tallaabaan dadkii xaafadaha ugu tagayeen bacdima wartii aynan dayactir iyo faara bixin aynan helin muddo dhowr sano ah. maanta alxamdulilah ilaahay fadligiis dowladda hoose xamar waxay ku guuleysatay iyadoo maaragtay meel marinaysa mashruuca nagaad in wartaan shaqadaas intaa la eg laga qabto oo biyihii intaasoo degmo ka soo hoomanayay haddii ilaahay yidhaahdo maalmo kadib ay maaragtay noqon doonaan biyo maaraysan shacabkii dhibaatada ku qabana ama guryaha uu ka burburi jiray ama qaarkood xataa ku dhiman jireenna xal loo helay ilaahay idinkiisa guul waaye. shirkadda fulinaysa waxaan rajaynaynaa sidaan heshiiska ku galnaba in ay maaragtay sida loogu talagala oo tayo leh oo isla xisaabtan iyo kontarool leh inay shaqadaas u qabato. injineerada dowladda hoose ka socdo iyo xiriiriyaha mashruuca nagaad iyo ku-xigaha howlaha guudna inay maaragtay si toos ah u kontaroolaan shaqadan ilaa ay ka min bilow ilaa dhammaad haddii ilaah yidhaahdo. dowladda hoose xamar maamul gobolka banaadir waxaan u taaganahay mar walba inaan bulshada u adeegno dhinac kasta haddii ahaa lahayd dhinaca dib u dhiska waddooyinka iyo soo celinta bilicda magaalada ee nadaafadeeda. muddadii koobneed aan xilka hayay aniga mas-uuliyiinta ila shaqaysa waxaan ku guulaysanay sidaad ka warqabtaan in mashaariic waaweyn aan dhagax dhignay oo hadda waddadan halkan 26 juun ay ka mid tahay oo dowladda hoose maalgelinayso. shalay ugu dambeysay waddadii dabka oo waddo muhiim ah oo runtii magaalada muqdisho waddooyinka ugu muhiimsan ka mid ah hal sano ka horna la dhagax dhigay laakiin aynan shaqadeeda haba yaraatee bilaaban muddo hal sano ah dhaqaale darajirta awgeed ayaa shalay waxaan ku guulaysanay inay iyadana shaqadeeda ay dib u bilaabato kadib markii dowladda hoose xamar ay ku guulaysatay in ay dhaqaalihii shirkaddii lagula heshiiyey qaybtii raatadii koowaad ay farta ka saartay. waddadaas iyo tan 26 juun iyo talaadii lasoo dhaafo iyadana waddadii buundooyinka oo iyadana taagneed dhaqaale darre 6 bilood u taagneed shaqadeedii iyadana aan talaadii dib u bilownay. intaas kaliyaha waxaa kaloo waddadii Zooba oo iyadana gebageba ah oo maalmo kooban gudahood lagu xariga laga jari doono haddii la yidhaahdo iyo waddooyinkii Banaadir waddooyinkii dhowrka ahay ee Shangaandhi ilaa maaragtay Nasiib Buundo ilaa Ciise Cabdi intaasoo dhan ayaa dhinaca waddooyin ka socdo. dhinaca waad la socotaa nadaafadda shaqaale culus ayaan ku beerinay mushaarkiina waan kordhinay oo bishaan maanta waxaa u dhacaya shaqaalaha nadaafadda mushaarkoodii oo kordhay ayaa u dhacaya haddii la yidhaahdo. taasna halkaana si official ugu dhawaaqaya. kaliya waxaa la aqooni jiray in waaxda nadaafadda kaliya ay ku qoran tahay nadaafadda waddooyinka laakiin xilligan waxaan dejinay qorshe ah in dhowr iyo 30 waaxood ee dowladda hoose oo waaxda xafiiskayga ay ka mid tahay ugu horeyso inay mid walbo ka mid ah ay maalin laamiga gelayso saacado 2 saacadood ugu yaraan ay nadiifinayso. aniga ka soo bilow ilaa dowladda hoose dhowrka kun oo shaqaalaha
kulligeen waxaan nahay nadiifiyaal haddii ilaahay ka qayb qaadanayo waaxda nadaafadana shaqadeedana waa ku xoojinay mushaarkana waa u korrinaa haddii ilaahay yiraahdo taasna waxay ka mid tahay arrinta soo celinta bilicda magaalada shacabka magaalada marka gaar ahaan degmooyinkan oo toddobada toba ay ka timaado sida agaasime dhiga cadda sheege odagaa isaga rog caddaa oo magaalada aad nooga yaqaane haddii ilaahay kuu rayahay waxaan ugu baaqaynaa inay biyaha qashinka aysan soo raacsiinin inay biyaha qashinka soo raacsiinin ay tubooyinkaas aynan xirmin inay warta hadhow bamba biyaha ka saarayo haddii qashin lasoo raacsiiyo markaan bamkii xitaa shaqadii sida loogu talagala ma qabanayo taasna bulshada caasimadda waxaan ugu baaqayaa yacni nadaafadda kaalin baad ku leedihiin kaalintiina inaad aad u ilaalisaan haddii ilaahay yidhaahdo waxyaabaha hadda maalmahan aan qabanno oon soo korin waxaa ka mid ahaa waddo aan dhisayna kaliya ma ahane waddooyinka jajaban laftirkooda waxaan u samaynaa dayactir joogto ah oo waxaa jirto shirkadda muqdisho oo iyadana maalin kasta dayactiraysa waddooyinka jajabay oo dowladda hoose ay 100% maalgelinaysa iyadana waddooyinka naga jajaban oo yacni dayactirka yararka u baahanna ayagana waxaan ku haynaa dayactir kuwa waaweyna dhis baan ku haynaa haddii la yidhaahdo magaaladan waxaan rabnaa muddo yacni 2 sano gudahood ah kama dabees inay noqoto magaalo maaragtay waddooyinkeeda kullina ay u dhisan yihiin nalaysan yihiin haddii ilaahay yidhaahdo nadiif ah 100% haddii la yidhaahdo waxaan rabnaa haddii la yidhaahdo magaaladan mar dhow sidoo kale waxaan bilaabi doonaa aan daafuri doonaa samaa farihi magaaladan inay maaragtay waddooyinka ay yeelato traffic lightka inay yeelato iyadana haddii ilaahay kuurey mashruucaas adagana dowladda hoose waan soo wadnaa shacabka marka waxaan ugu baaqayaa inuu mar walba kaalinta kaga aadan oo ka qaato ilaashadana mashaariicdan wanaagsan ay fulayso waxaasoo dhan waxaa aasaas u ah amniga iyo nabadgelyada guud ee magaaladan ka jirto haddii nabadgelyo ayna jirin waxaanoo dhan ma qabsoomi karaan nabadgelyada magaaladan ka jirtana ku fara adeega oo ciidamada amniga haddii ilaahay kuuri si wanaagsan ha loola shaqeeyo mar labaad iyo mar saddexaad dowladda hoose ee muqdisho waxay u taagan tahay inay shacabka u adeegto adeegayaal baan nahay ayaan nahay waxaana ogolnahay in mar walba shaqooyinkeenna isha lagu hayo nagulana xisaabtama haddii la yidhahdo waana salaamantiina